is for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewailing of Allah. And Tha is for thawab, a reward. J is for Jannah, the God. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنigoo ah magacayga Maryan Awaas Maxamed oo la dhigatay iskuulka Sacaada kana socota fasalka sagaalaad ee dugsiga sare. Halkan waxaan idinka soo jeedin doonaa ahmiyadda ay leedahay waxbarashada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku yidhi, ma isku mid baa kuwa wax yaqaana iyo kuwa aan wax aqoonin, waxaana waantooba kuwa caqliga leh, balse jawaabtu waa maya. Suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa kii yidhi qofkii mara wada uu cilmiga ku korarsanayo waxa uu Allah u fududeeyaa wadada jannada. Faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashadu waxaa ka mid ah waxaad helaysaa xushmad iyo tixgelin kaaga imaanaysa dadka xaggooda. Waxbarashadu waxay bedeshaa caadooyinka iyo dhaqamadaada. Shaqo ayaad ka helaysaa meel kasta. Waxbarashadu waxay samaysaa saaxiibo. Waxbarashadu waxay kuu suurtagelisaa maamulidda waqtigaaga iyo lacagtaada. Xikmadaha aqoonta ku salaysan waxaa ka mid ah aqoon la'aan waa iftiin la'aan, waa aqal iyo ilays la'aan. Ogaada oo aada dugsiyada u aada. Xikmadaha aqoonta ku salaysan waxaa ka mid ah aqoon la'aan waa iftiin la'aan, waa aqal iyo ilays la'aan. Ogaada oo aada dugsiyada u aada. Waxbarta aan barwaaqa gaarnay, haddaad taqaan bar, haddaadan aqoon baro. Aqoontu waa iftiin oo far waaweyn ku qoran. Murti ayaa ahayd qofkii adduunyo raba waxa barto, kii aakhiro rabana waxa barto, kii labadaba isku wada rabana waxa barto. waxaan idin soo jeedin rabaa manduumad Abi Isxaaq Albiiri oo na ka hadlaysa cilmiga. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خسر أبت طلاقها الأكياس باتا تنام الدهر ويحك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع محتى متى لا تنتى أراك تحب عرسا ذات خسر أبت طلاقها الأكياس باتا تنام الدهر ويحك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع محتى متى لا ترعبي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. آخر الأبيات إنت أن كلنتهي سلح أن كل مدونة سيداس إيا أحببت أن